Assalaamu calaykum. Waxaynu maanta ka hadli doonaa taariikhdii madaxweynihii hore ee waddanka Zimbabwe, Robert Mugabe. Markii uu noqday ra'iisul wasaarihii u horreeyay ee Zimbabwe xor ah, iyo markii dambe ee uu madaxweyne noqdayba, Robert Mugabe waxa uu ballan qaaday dimuqraadiyad iyo dib u heshiisiin. Laakiin rajadii la dhalatay xorriyaddii 1980kii waxaa dumiyey colaad, musuq iyo masiibo dhaqaale. Madaxweyne Mugabe wuxuu noqday nin si aan gabasho lahayn u dhaliila reer galbeedka, weliba gaar ahaan Ingiriiska oo ah quwaddii gumaysay ee dalkiisa haysan jirtay, waxaanu ku eedeyn jiray dal cadow ah. Inkasta oo uu si arxan-darro ah ula dhaqmi jiray siyaasiyiinta mucaaradka ku ah iyo weliba maarayn xumadiisii dhaqaalaha dalkaas oo mar ahaan jiray mid barwaaqo ah, ayaa haddana waxa uu had iyo goor taageero ka heli jiray hogaamiyaasha kale ee Afrika oo u arkayay in uu ahaa geesi la dagaalamay xukunkii gumaysiga. Robert Gabriel Mugabe waxa uu ku dhashay dalkii la oran jiray Rhodesia 21 February 1924. Aabihii waxa uu ahaa nijaar ka dhashay qowmiyadda dalka ugu badan ee Shona. Wuxuu wax ku bartay dugsiyadii kaniisadda Kaatooliga, waxaanu noqday macallin. Waxa uu deeq waxbarasho ka helay jaamacadda Fort Hare ee Koonfur Afrika, oo waxa uu ka qaatay shahaadadiisii ugu horreysay ee jaamacadeed oo ka mid ah 7 shahaado ee uu haystay. Kadib waxa uu macallin ka noqday dalka Ghana, halkaas oo uu aad ugu riyaaqay fikradihii hogaamiyihii Ghana ee dooni jiray midnimada Afrika, Kwame Nkrumah. waxaanu halkaa ku guursaday afadiisii koowaad, Sally, oo reer Ghana ahayd. Sannadkii 1960kii Mugabe wuxuu ku noqday Rhodesia. Markii hore wuxuu ka shaqeeyey xisbigii waddaniyadda Afrikaanka u doodi jiray ee hogaaminayay Joshua Nkomo. Kadibna wuu ka baxay oo wuxuu ka mid noqday xubnihii aasaasay ururkii Zimbabwe African National Union ee loo soo gaabin jiray ZANU. Sannadkii 1964kii mar uu khudbad jeediyo uu ku sheegayay ra'iisul wasaarihii Rhodesia, Ian Smith, iyo xukuumaddiisii Cowboys, ayaa Mugabe la xidhay muddo 10 sanno ah isaga oo aan maxkamad la horgeynin. Wiil yar oo uu dhalay ayaa dhintay isaga oo weli xabsiga ku jira, waxaana loo diiday inuu aaska ka qayb galo. Sannadkii 1973kii isaga oo weli xabsiga ku jira waxaa loo doortay inuu noqdo hogaamiyihii ururkii ZANU. Markii la sii daayey kadibna waxa uu tegay Mozambique, waxaanu halkaa ka bilaabay dagaal jabhadeyn ah oo uu ku qaaday Rhodesia. Ururkiisii ZANU wuxuu isbahaysi aan adkayn la yeeshay ururkii Nkomo ee Zimbabwe African People's Union ee loo soo gaabin jiray ZAPU. Intii ay socdeen wadahadalladii adkaa ee lagaga wada hadlayo gobonnimada Rhodesia, waxaa loo arkayay inuu ahaa ninkii ugu mayal adkaa hogaamiyaashii madooba ee aan marnaba ka tanaasulayn waxa uu doonayo. Sannadkii 1976 mar uu socdaal ku tegay London ayuu ku dhawaaqay inuu xalka keliya ee dhibaatada Rhodesia ku iman doono qori caaradii. Xirfadihiisii wadaxaajoodka ayuu ku mutay ixtiraam uu ka helo dad badan oo markii hore aad u dhaliili jiray. Warbaahintuna waxay ku ammaantay inuu ahaa maskaxda jabhadda. Heshiiskii lagu saxeexay Lancaster House ee 1979kii waxaa lagu jeediyey dastuur loo sameeyey jamhuuriyaddii cusbeed ee Zimbabwe oo lagu beddelay magacii Rhodesia, waxaana lagu mudeeyey in bisha February ee 1980 ay dhacdo doorashadii ugu horreysay ee lagu dooranayay dowlad cusub. Mugabe waxa uu ololaha doorashada galay isagoo ka aragti duwan Nkomo, waxaanu helay aqlabiyad weyn, taas oo dad badan oo doorashada dusha kala socday ku noqotay guul lama filaan ah. Ururkii ZANU waxa uu helay aqlabiyad badan, inkasta oo ay labada dhinacba doorashada ku tilmaameen in ay ka jirtay ku shubasho iyo cagajuglayn. Mugabe oo ahaa nin aan la gaban jirin hadallada ayaa markii uu guulaystay dad badan oo caddaan ay ka guureen Rhodesia, iyada oo ay dadka taageersanay dariiqyada ka damaashaadayeen. Si kastaba ha ahaatee, hadalladiisii dabacsanaa ee dib u heshiisiinta markii uu guulaystay kadib uu sheegay ayaa qanciyay dad badan oo ka soo horjeeday. Wuxuu ballan qaaday inuu dhisi doono dowlad sal ballaadhan iyo in aan cidna xukuumaddiisu ka aargudan doonin, islamarkaana aanu qaramaynayn shirkadaha ganacsi ee gaarka ah. Waxa uu sheegay in ujeeddadiisu ay tahay dib u heshiisiin.
sannadka dabayaaqadiisii waxa uu soo bandhigay siyaasaddiisii dhaqaale taas oo isku dhaftay ganacsi gaar ah iyo maalgashi dowladeed. markii uu ahaa ra'iisul wasaaraha ee uu had iyo goor u doodi jiray inuu dalku yeesho hal xisbi oo keliya ayaa khilaafkii dhex yaalay Mugabe iyo Nkomo sii qoto dheeraaday. mar la helay hub badan oo yaalay goobo uu lahaa ururka ZANU ayaa Nkomo xukuumaddiisii lagaga saaray isku shaandhayn la sameeyey. inkastoo uu afka uu ka sheegan jiray dimuqraadiyadda, Mugabe waxa uu cabiriyey mucaaradnimadii siyaasadeed. bartamihii 80-maadkii ayaa waxaa lagu xasuuqay kumanaan qof oo ah qoomiyadda Ndebele oo loo arkayay inay yihiin taageerayaasha Nkomo gobolka uu ka dhashay ee Matabeleland. Mugabe waxaa lagu eedeeyey dilka ay fulisay guutada shanaad ee ciidanka Zimbabwe oo ay Kuuriyada Waqooyi tababartay, laakiin maxkamad lama geyn. cadaadis badan oo la saaray awgii ayaa Nkomo ku aqbalay in ururkiisii ZANU ku biiro ZANU haddii kale khasab lagula wareegi doono. waxaanu xisbigii ZANU markii dambe noqday ZANU PF oo aan lala tartami karin. markii uu meesha ka saaray xilkii ra'iisul wasaarenimada ayaa Mugabe waxa uu noqday madaxweyne 1987. isla markaa ayuu guursaday Grace Maruvu kadib markii xaaskiisii u dhimatay kansar ku dhacay. Grace oo 40 sano ka yarayd waxa ay marka horeba u lahayd Mugabe 2 caruur ah. kii saddexaadna waxay u dhashay madaxweynaha oo ah 73 jir. waxoogaa wuxuu ku guulaystay inuu dhiso bulsho aan midab isku kala soocin, laakiin 1992 ayuu soo saaray xeerka la wareegidda dhulka kaas oo u oggolaanayay in dhulka lala wareego iyadoo oo aan wax rafcaana aanay qaadan karin cidda markaa lihi. qorshuhu waxa uu ahaa in dhulka oo ay badankiisa haysteen 4500 oo beeraley caddaan ahi dib loo qaybiyo. horaantii 2000 oo madaxtinimadiisana ay halis badani ka soo food saartay xisbi cusub oo markaa la sameeyey oo ah Movement for Democratic Change loona soo gaabin jiray MDC oo uu hogaaminayay nin hore guddoomiye uga ahaan jiray ururada shaqaalaha. Morgan ayaa Mugabe ku cadho burburay beeraleydaas oo loo arkayay taageerayaasha MDC. taageerayaashiisii oo loo yaqaanay xorriyad u dirirkii ayaa qabsaday beero ay caddaanku lahaayeen, waxaana la dilay qaar ka mid ah beeraleyda iyo shaqaalahoodii madowga ahaa. tallaabada uu qaaday waxay wiiqday dhaqaalihii dalka ee marka horeba dhutinayay oo waxaa afka dhulka daray wax soo saarkii beeraleyda ee Zimbabwe. dadka Mugabe dhaliilayna waxa ay ku eedeeyeen inuu dhulka u qaybinayay dadka isaga siyaasad ahaan taageera ee aan la siinayn dadka reer miyiga ah ee u baahan. waxaynu sidoo kale taaban doonaa waayo ku suntan taariikhda Mugabe. 1924 wuu dhashay, markii dambena macallin buu noqday. 1964 waxaa xidhay xukuumaddii Rosedia. 1980 wuxuu ku guulaystay doorashadii ugu horreysay xorriyaddii kadib. 1996 waxa uu guursaday Grace Maruvu. 2000 waxa uu ku guuldaraystay afti maleeshiya taageersan Mugabe ayaa xoog ku qabsaday beero caddaanku leeyihiin, taageerayaasha mucaaradkana weeraray. 2008 waxa uu kaalinta labaad ka galay wareeggii koowaad ee doorashada oo Morgan ku horreeyey, hase yeeshee uu qaadacay markii dambe iyada oo weeraro lagu qaaday taageerayaashii dalka oo dhan. 2009 iyada oo dhaqaaluhu dumay ayuu Morgan u dhaariyay ra'iisul wasaarenimo oo xukuumad midnimo qaran ah oo aan is-oggolayn ay ku wada jireen 4 sano. 2017 waxa uu eediyey jaalkiisa muddada dheer oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisa Emerson, isaga oo dhabaha u xaadhaya xaaskiisa Grace si ay xilka ugala wareegto. November 2017 ciidanka dalka ayaa faragelin siyaasadeed ku khasbay inuu iscasilo. Zimbabwe oo ahayd dalka ugu weyn ee cuntada soo saara Afrika waxa ay dhaqso isugu beddeshay dal ku tiirsan gargaar shisheeye oo lagu quudiyo dalkeeda. sanadkii 2000 doorashooyinkii baarlamaanka xisbiga MDC waxa uu 57 ka helay 120 kursi oo lagu codeeyey, inkasta oo markii dambe 20 kursi ay heleen dad Mugabe magacaabay, sidaana uu xisbigiisii ZANU PF ku helay aqlabiyadda. 2 sano kadib
doorashadii madaxweynaha ayaa Mugabe ka helay 56.2 boqolkiiba halka uu Morgan ka helay 41.9 boqolkiiba iyada oo loo cagajuglaynayay taageerayaasha MDC. dad badan oo miyiga degan ayaa loo diiday in ay codkooda dhiibtaan oo hore looga xidhay goobihii codbixinta. dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub ayaa iyaguna sida MDC oo kale aan aqoonsanin wixii ka soo baxay doorashada maadaama oo doorashada ay hadheeyeen qalalaase iyo eedo musuqmaasuq, waxaana ay Mugabe iyo Zimbabwe sii galeen go'doon sii kordhaya. ururka dalalka barwaaqo sooranka ayaa sidoo kale Zimbabwe ka joojiyey inuu ka qayb galo shirarka ururka ilaa ay inta ay hagaagayso dimuqraadiyadiisu. sanadkii 2005 ayaa Mugabe waxa uu bilaabay olole loo bixiyey soo celinta kala dambeynta oo gacan adag lagu saaray suuqa madow iyo waxa lagu sheegay qas guud oo dalka ka jiray. qiyaastii 30,000 oo wadhataha ayaa la xidhay waxaana la dumiyey xaafadaha isku raranta ee dalka oo dhan ku yaalay, taas oo dhalisay 700,000 oo qof oo reer Zimbabwe ahi inay barakacaan. Robert Mugabe waxa uu ahaa nin aan raaxo jeclayn oo ku labista dhar aan qaali ahayn isla markaana aan cabi jirin khamriga. saaxiibadii iyo kuwa ay ishayaanba il shaki leh ayuu ku eegi jiray arrintaas oo aan waxba ka sokayn inuu noqdo qof qaba baqe aan jirin. waxa uu ahaa nin lagu ammaano inuu ahaa geesiyadii halgankii Afrika heeryadii gumaysiga iskaga tuuray, hase yeeshee waxa uu isku rogay keligii taliyo ku tuntay xuquuqda aadanaha, dal mar barwaaqo ahaana ka dhiga goob macaluuli kuduudo. sooyaalkiisu waxaa suurtagal ah inuu sannado badan sumcadda Zimbabwe cambaar ku ahaado. inta ayaynu ku soo koobi doonaa taariikh nololeedkii Mugabe.